maanta waxaa la soo gabagabeeyay tartanka dugsiyada sare oo ay qabanaysay idaacadda Kulmiye. Tartankan ayaa kulmiyey 32 iskuul oo ku yaala gobolka Banaadir. Dadaalku ma yarayn. dhowr subax ayay hurdada kaga soo tooseen si ay u muujiyaan aqoontooda una difaacaan magaca iskuulka ay dhigtaan. Maskaxda ayay shiileen si ay u abaaraan weydiimo tiro badan oo dhowr jeer la hordhigay. balse xilliyada qaarkood oo su'aaluhu kululaayeen ayay ka sii waayeen. Kulmiye ayaana looga maarmi waayay inay ka warceliso. kulmiyow ka jawaab labada kooxba keeni weyde kulmiyow ka jawaab labada kooxba keeni weyde kulmiyow ka jawaab labada kooxba keeni weyde waxa aad u adag in 32 iskuul ka soo dhex baxdo oo aad gasho kaalinta koowaad noqoto kaalinta labaad adoo ku rajo weynaa kaalinta koowaad iyo inaad nasiib u yeelato gaaridda ilaa kaalinta saddexaad. iskuulka Al-Nashaad ayaa sanadkan noqday kaalinta koowaad kadib kulan adkaa oo maanta finalka ay isku arkeen iskuul Nageyle. maanta tartan xiiso leh wuxuu dhaxmaray ugu finalka ah oo kala dambaysta iskuulada kala Al-Nashaad iyo Nageyle. Al-Nashaad todobadii su'aalo la weydiiyay si sax ah u garteen labana way ka faa'iideysteen sida darteed dhibco gaar iyo 16 ay halkaas ku urursadeen halka iskuulka Nageyle todobadii su'aalo xaq u lahayn la weydiiyay 5 kamid ay garteen labana ay garan waayeen عين جنس لو كله وحكي فايدة سواء هلين بعداري طبعا أي هالكاس يكون رسلين النشاط ولا طبعا ينقله أو طبعا يترتك الفرق ما تقول مانيا يسكول كان نشاط أيام واحد من ضيوف ريالك ترتن كي سؤال لو أعتقد مع الموضوع السعودي هذا يكون مية يقبل يصير جامعات السمو في أي تعمقلين يسوي المسؤول ويسوي ديارنيس جوشة كدب فرحدو وحيكون نقطة وهل أرضي إسكول كان نشاط قياس ما لهين فرحدو ذا أو وحي كدبين ujeedkoodii bilowga tartanka kana mid ah tartamayaasha iskuulka hoose dhexe sare Al-Nashaad maanta aad iyo aad aan faraxsanahay inaan 32 iskuul oo ku tartamaysay barnaamijka tartan aqooneedka dugsiga sare ee gobolka Banaadir ay qabato raadi Kulmiye in aan ka galno lambar 1 Al-Nashaad oo guuleysatay Nageyle guuleysatay Al-Nashaad guuleysatay wax ma isma dooriso mar haddii aad timi kama dambaysa tartanka waxa ay suureynaysaa awooddaada inaad u qalantay noqoshada horyaalka balse inaad haleeli weydo hilanka ayaa dhacda xilliyada qaar una tartamay dugsiga Nageyle waxaan ku faraxsanahay inaan kaalinta labaad ka galo 32 iskuul ee barnaamijkan ku tartamaysay markii uu bilaabanay waxaan aad ugu faraxsanahay inaan kaalinta labaad ka galno waxaan sidoo kale u hambalyeeynaa iskuulka Al-Nashaad oo kaalinta koowaad galay waxbarashada waa adeemaha macno weyn ugu fadhisaa abwaan xirsi dhuux oo ah gudoomiyaha golaha abwaanada ayaa dul istaagay in tartamadan oo kale loo baahan yahay in la qabto waxbarashadu sideedaba waa hawl qaali ah waa xirfad cajiib ah qofka bini aadanka ah wuxuu wataa laba cilmi mid waa macluum oo waa uu bartaa midna waa mawhibo oo waa uu ku dhashaa qofku hadduusan ku dhalan marka midka mawhibada uusan lahayn kan macluumka ma la bari karo waa adag tahay waa dhib badan tahay marka waa ku faraxsanahay inaad muxuu ahaa kaalin fiican gasheen run ahaantii iskuulka Nageyle iyo Al-Nashaad iyo kii kaalinta saddexaad galayba jaamacadda Somafil oo kamid ah jaamacadaha ku yaala Muqdisho oo sanadkan lahaatay 2 door oo muhiim ah oo kala ah tabagelinta oo koow ah iyo diyaarinta su'aalaha oo kaamil yeeshay kaalintooda Ustaad Cabdisamed Sheekh Yuusuf oo ah maamulaha jaamacadda Somafil ayaa xusay inay wax weyn uga dhigan tahay inay dhiirigeliyaan ardayda laguna tartansiiyo waxa ay soo barteen maalmo kadib ayuu sheegay inay heli doonaan abaalmarintooda tartankan wuxuu ugu duunaa tartamadii hore yani su'aalihiina si isku mid ah loo soo diyaariyay oo cadaalad oo ahaa sida ardayda yani guddiga hore ay u sheegeen sidoo kale waxa jaamacadda Somafil ay halkan ka balan qaadaysaa haddii insha Allah ciida laga soo laabto inay abaalmariso iskuulka gala kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad hadduu Ilaahay raado insha Allah oo xaflad gooni ah oo sameeyo doona insha Allah KNN oo sanad waliba isku hoosha curinta buundooyin isku xira bulshada ayaa waqti iyo dadaal bagelisay in la helo jiil aqoonta ku tartama Burhaan Diini Faarax agaasimaha idaacadda Kulmiye ayaa sawir guud ka bixinaya yoolka ugu weyn ee sanad waliba loo qabto tartankan sida loo geeyay barnaamijka waxa ka qayb galay 32 dugsi oo gobolka Banaadir ku yaala 32 dugsi sare oo markastoo socdo wuxuu ahaa heerkiisa knock out ayuu ahaa oo dugsiga laga badiyo uu socday marka Al-Nashaad ayaa ugu horeeyay dugsiga ugu horeeyay ee furay ahaa maantana heerkii gabagabada ayuu nala joogaa marka waxa halkaas ka muuqanaysa dhammaan iskuuladu inay dadaaleen marka waxaan leeyahay dhammaan iskuulada ka qayb galay oo dhan waa wada guuleysateen
saddexda iskuul ee kaalimaha hore kala galay ayaan rabaa inaan halkan sidoo kale uga mahadceliyo kala ah Nashaad Nageyle iyo Al-Anwar oo isna kaalinta saddexaad ee dugsigaas galay iyo dhammaan dugsiyada ka qayb galay aqbalay barnaamijka inay ka qayb galaan ujeedka marka barnaamijku wuxuu ahaa in kor loo qaado aqoonta ardayda Soomaaliyeed isdhexgalka iyo isbarashada ardayda iyo iskuulada nafsadahantooda iyo naftigooda jaamacadda naftigooda inay iskuulada isbartaan waa ogahay way is yaqaanaan oo bahdi waxbarashada isla yihiin haddana inay isbartaan ay qayb ka tahay hawsha warbaahinta waxaa lagu yiraahdaa waxaa loo qaybiyaa 3 qaybood oo ah wargelin oo ah dadka inay war u sheegto wixii jira maaweelin oo ah dadka inay maaweeliso oo maalmaha aad dhageysataa mararka qaar iyo qodobka saddexaad oo hadda kaan u fadhina ah waxbaris marka waxbaristii qayb ka mid ah hawsha warbaahinta ay tan ahayd marka sanadkan tartanka dugsiyada sare ee gobolka Banaadir oo idaacadda kulmiye ay qabatay xiisa gaar ayuu lahaa waa inoo sanad kale iyo tartan kale iyo dadaal kale oo ay bixin karaan guulaysiyaasha iyo kuwii guuldareystayba u doona Soomaali Suudaneys Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Soomaali Suudaneys waa badqabka bulshadeena